asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa maalin salaasaha bisha abrilna ay tahay 22 sanadkuna uu yahay 2025. waa barnaamijkeeni maanta Sooyaal TV. barnaamijkeena maanta waxaad ku maqli doontaa arrimo badan oo ay ka mid yihiin Gaza, Israa'iil laftigeeda maxaa ka socda, Maraykanka, arrimihii wadaxaajoodka ee nuclearka Iran oo isaguna ay Israa'iil ay qudareynaysay inay faragelin ku samayso balse ku fashilantay. arrimahaas iyo arrimo kale ayaad barnaamijkeena ku maqli doontaa. mar kale iyo isu soo noqod wanaagsan barnaamijkeeni maanta iyo Sooyaal TV oo toos idinka imanaya magaalada Qardho ee Puntland. aynu ku bilowno magaalada Gaza. ciidamada Gaza waxa ay baahiyeen sawirro muujinaya weerar ay ugu magacdareen safety wadareedka. muuqaalkaas oo muujinaya dagaalyahano ka tirsan Gaza oo weerar ku soo qaaday gaari military oo meel eber ay ka dhaceen dagaalku, taasoo keentay inuu gaarigu rogmado iyada oo ciidamada Israa'iil ay saaraayeen. dhinaca kale ilo caafimaad ayaa sheegaya in 18 qof oo shacab ah ay ku shahiideen duqeymo oo Israa'iiliintu ay ka fuliyeen gudaha Gaza tan iyo subaxnimadii Isniintii shalay. dhinaca kale Israa'iil, wasiirka maaliyadda Bezalel Smotrich ayaa sheegay in soo celinta dadka la afduubtay ee ku maqan Gaza aysan ahayn mudnaanta koowaad ee dowladdu leedahay, taasoo keentay in qoysaska dadkaasi ay si adag u cambaarayaan iyagoo ku tilmaamay hadalladiisa kuwa ceeba. daanta galbeed xoogagga Israa'iil Qudus ayaa sheegay in dagaalyahanadoodu ay weerar la beegsadeen ciidamo Israa'iiliyiin ah oo ku sugnaa magaalada Jiniin iyagoo isticmaalaya minooyin. xerada qaxootiga ee Nuur al-Shamsi ee ciidanka Israa'iil ay godoomiyeen muddo ka badan 70 cisho ayaa waxaa maanta si xooga ku galay ciidamada gumaysiga Israa'iil, kuwaasoo baaritaano ka sameeyey guryo badan islamarkaana ku amray ilaa iyo 10 qoys inay guryahooda ka baxaan. warbaahinta Israa'iil ayaa ku warantay in dhacdo amni oo culus ay ka dhacday koonfurta marinka Gaza iyada oo tirada shuhaadada ku dhimatay gudaha Gaza tan iyo waa berigii Isniintii ee shalay ay gaarayeen ilaa iyo 11 qof, iyadoo ay jiraan tiro kale oo dhaawac. wakaaladda wararka Israa'iil waxa ay sheegeen in dhaawacyo badan laga qaaday goobta dhacdadani ka dhacday ee koonfurta Gaza, kuwaasoo loo gudbiyey isbitaalada gudaha Israa'iil. waa ciidamo tiro badan oo Israa'iiliyiin oo halkaa lagu dhaawacay, hase yeeshee lama faahfaahin nooca weerarka ama khasaaraha kale ee ka dhacay. sidoo kale channelka 7 ee Israa'iil ayaa shaaciyey in labada askari ee Israa'iil ah oo ku dhaawacmay weerar ka dhacay agagaarka Beit Xanuun maalintii Sabtida ay lagama maarmaan noqotay in lugahooda laga gooyo kadib dhaawacyo culus oo soo gaaray. weerarkaasi waxaa fuliyay xarakada muqaawamada Islaamiga ee Xamaas, gaar ahaan garabkeeda militariga ee Isudiin al-Qassam. sida ay sheegtay idaacadda rasmiga ee Israa'iil ee Kan, weerarkan cuslaa wuxuu ka dhacay meel u dhow halka uu toddobaadkii hore booqday ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. jenaraal Israa'iili oo hore oo la yiraahdo Yitzhak Brig ayaa si kulul u dhaleecayay guuldarrooyinka ciidanka Israa'iil ee dagaalka ay kula jiraan Xamaas gudaha marinka Gaza, isagoo sheegay in ciidanka Israa'iil aysan gaarin wax guul militari ah oo la taaban karo. waxa uu ku tilmaamay dagaalkan mid ay Xamaas guul militari oo xanuun badan ay u geysatay Israa'iiliyiinta, taasoo Israa'iil ugu tagtay dhaawac qoto dheer oo muddo raagi doona. qormo uu Brig ku daabacay wargeyska Maarif ayaa waxa uu si toos ah ugu eedeeyey hoggaanka militariga, isagoo yidhi ciidanka Israa'iil wuu guuldaraystay inuu gaaro ujeedooyinkii dagaalka sida jebinta Xamaas iyo soo deynta dhammaan la haystayaasha. waxaa kale oo uu sheegay in la iska daayo in mas-uuliyadda lagu eedeeyo oo keliya siyaasiyiinta, isagoo hoostaga xariiqayn sheegashada ah in ciidanku guul keenay ay tahay waxaan sal iyo raatoona lahayn. Brig waxa uu si gaara u xusay in dagaalku uu noqday mid aan faa'iido lahayn oo lagu lumiyey nolosha askar badan iyada oo aan la gaarin wax isbeddel istiraatiiji ah gudaha Gaza. wuxuu intaa ku daray ciidanka Israa'iil waxa uu marar badan qabsadaa dhulal ku yaala Gaza, balse dib ayuu uga baxaa
ma oo mar kale ayuu ugu noqdaa dagaal, taasoo horseeda dagaallo isdaba joog ah iyo khasaare joogta oo ciidanka soo gaara. wuxuu sheegay in ciidanka dhulka ee Israa'iil aysan ku filayn inay si buuxda u xukumaan goobaha ay galaan, taasoo ka dhigaysa howlgalku mid aan natiijo lahayn. bada ugu culus ee xusay waxaa ka mid ah in Xamaas weli ay gacanta ku hayso awoodeedii dagaal ee muhiimka ahayd, iyadoo si firfircoon uga howlgasha shabakadaheeda dhulka hoostiisa ah oo aan ilaa iyo hadda la burburin. Brig wuxuu sidoo kale sheegay in Israa'iil aysan xitaa awoodin inay dhisto maamul ciidan oo bedela Xamaas gudaha Gaza, inkasta oo arrintaas lagu sheegay inay ahayd yool muhiim ah oo lagu ballan qaaday wejigii koowaad ee dagaalka. hadallada Brig ayaa astaan u ah jabka ka dhex jira qaar ka mid ah saraakiisha hore ee Israa'iil, kuwaasoo shaki weyn ka qaba jihada iyo guulaha dhabta ee dagaalka Gaza. madaxa hay-adda sirdoonka gudaha Israa'iil ee Shin Bet, Ronen Bar, ayaa u gudbiyey maxkamadda sare ee Israa'iil warqad rasmi ah oo si kulul ugu cambaareeyey ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, kaasoo go'aansaday in xilka laga qaado Bar bishii Maarso ee lasoo dhaafay. warqadda oo ka koobnaa 8 bog ayuu Bar ku sheegay inuusan weli ogeyn sababta rasmiga ah ee xilka qaadista, isagoo ku andacooday in tallaabadaasi aysan ku salaysnayn arrimo xirfadeed ama amni, balse ay ahayd miduu Netanyahu u adeegsaday danihiisa shakhsiyeed ama gaar ahaaneed. Bar waxa uu sheegay in Netanyahu ka codsaday inuu u adeegsado awoodaha hay-adda si uu carqalad ugu keeno mudaharaadyada lagaga soo horjeedo, iyo sidoo kale inuu siiyo talo amni oo la xiriirta sidii looga hortegi lahaa in Netanyahu maxkamadda la saaro. Bar wuxuu intaa ku daray inuu diiday codsigaas oo uu Netanyahu sidoo kale doonayay in kulankaas aan la diiwaan gelin. sidoo kale Bar wuxuu sheegay in Netanyahu uu ka dalbaday inuu bixiyo macluumaad la xiriira dadka abaabulaya ama ka qaybgalaya banaanbaxyada, isagoo si cad u sheegay in ra'iisul wasaaruhu u sheegay haddii ay dhacdo dhibaato dastuuri ah waa inaad u hoggaansantaa ra'iisul wasaaraha ee ma aha maxkamadda sare. ugu dambeyn, Ronen Bar waxa uu caddeeyey in uu si dhow u shaacin doono waqtiga uu si rasmi ah uga tegay xilka madaxa hay-adda Shin Bet. hadalladiisa ayaa ah fadeexad siyaasadeed oo weyn, taasoo ifinaysa muranka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya laamaha amniga iyo Netanyahu. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Isniintii shalay sheegay inuu si buuxda u garab taagan yahay wasiirka difaaca Pete Hegseth, kadib markii la sheegay inuu xog sirdoon oo xasaasi ah u diray koox fariin wadaag ah oo ay ku jireen xaaskiisa, walaalkiis iyo qareenkiisa gaarka ah. Hegseth ayaa la sheegay inuu adeegsaday barnaamijka Signal oo aan ahayn mid rasmi ah oo loogu talagalay xogaha sirta, taas oo ah markii labaad ee lagu qabto arrin noocan oo kale ah. arrintan ayaa imanaysa iyadoo Pentagonka ay ka socdaan isbedello waaweyn, waxaana toddobaadkii hore shaqada laga cayriyey saraakiisha sare kadib markii la bilaabay baritaan la xiriira xogaha gudaha oo la sheegay inay si qarsoodi u baxaan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u magacaabay Meraf Karen inay mas'uul ka noqoto siyaasadda la xiriirta Iiraan iyo Israa'iil ee golaha amniga qaranka ee aqalka cad, taas oo dhalin karta baa la yiri walaac ku saabsan isburin danaha iyo ogolaanshaha sirta amniga. Meraf Karen ayaa hore uga shaqaysay wasaaradda difaaca ee Israa'iil, halkaas oo ay qayb ka ahayd wadahadallo ka dhacay daanta galbeed ee la haysto, kuwaasoo u dhexeeyay Israa'iil gaar ahaan hay-adda Kogat iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Falastiiniyiinta. waxaa sidoo kale lagu sheegay in Karen ay ahayd ama ay la socotay amniga qaranka sanadihii 2016 iyo 2017, waxaana dhowaan loo hayay baa lii xilka agaasima ku-xigeenka siyaasadda ee senatarka jamhuuriga ee Ted Cruz. diyaarad nooca Boeing 737 Max ah oo loogu talagalay shirkadda diyaaradaha ee Shiinaha ee Xiamen Airlines ayaa si lama filaan ah dib ugu soo laabatay Mareykanka kadib safar qaatay in ka badan 8,000 oo kiiloomitir, iyadoo kusoo hakatay Guam iyo Hawaii si ay shidaal uga soo qaadato. diyaaradan oo lagu ranjeeyay astaanta Xiamen ayaa ka soo degtay garoonka Point Field ee magaalada Seattle galabnimadii Axadda.
lama oga ciddii go-aanka ka dambeysay in diyaaradda dib loo soo celiyo shirkadda Boeing iyo Shimen Airline toona kama aysan jawaabin codsiyada loo duray oo ku saabsanaa arrintan. dib u soo laabashada 737 Max oo ah nooca ugu iibka badan ee Boeing waxay muujinaysaa jahawareer baahsan oo ku yimid bixinta diyaaraddan cusub kadib markii uu burburay nidaamkii cashuur la'aanta ahaa ee muddo 10 sano ah lagu ilaalin jiray warshadaha diyaaradaha sameeya ee caalamka. madaxweyne Donald Trump ayaa bishan sare u qaaday cashuuraha lagu qaado badeecadaha Shiinaha taasoo hadda maraysa boqolkiiba 145. Shiinaha isaguna waxa uu si toos ah uga falceliyay isagoo duldhigay boqolkiiba 125 oo cashuura alaabta Mareykanka laga keeno, taasoo si gaar ah u dhaawacaysa shirkadaha diyaaradaha ee raba inay ka iibsadaan diyaaradaha Boeing. qiimaha halkii Boeing 737 Max ayaa waxa uu marayaa qiyaastii $55 milyan, waxaana lagu qiyaasayaa in shirkad Shiina ah oo diyaaradahan la wareegta ay la kulmi doonaan khasaare weyn sababo la xiriira cashuuraha cusub ee la isku soo rogay. dhibaatadan ayaa ku soo beegmaysa xilli Boeing ay weli ka soo kabanayso xayiraad dhanka dhoofinta ah oo laga saaray diyaaradaha 737 Max muddo ku dhow 5 sano, iyadoo sidoo kale wareegii hore ee xiisadaha ganacsi ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha dhex muquuraysa. mawduuceena ugu dambeeya barnaamijkeena waxa uu noqonayaa waxaa jira walaac xooggan oo laga qabo in maamulka Donald Trump uusan si qoto dheer u fahmin bay yiraahdeen waa Israa'iiliyiintu ee muhiimadda faahfaahinta dib u dhaca barnaamijka nuclearka Iran. sida uu qoray wargeyska Jerusalem Post, agaasimaha hay-adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad David Barney iyo wasiirka arrimaha istiraatiijiyadda Ron Damer ayaa la kulmay wakiilka Mareykanka ee bariga dhexe Steve Witkoff kulan qarsoodi ah oo ka dhacay magaalada Paris jimcihii la soo dhaafay. labadooda ayaa la sheegay in aysan ku guuleysan inay ka dhaadhiciyaan Witkoff inuu bedelo jihada uu u marayo wadahadalada nuclearka Iran. Israa'iil waxay xitaa ka fiirsanaysay qorshaha inay ku qabato Witkoff xilligii uu u safrayay wareegga labaad ee wadahadalada Iran oo ka dhacay magaalada Rome maalintii Sabtida. Ron Damer waa la taliyaha ugu dhow ee ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu, halka David Barneyna uu caan ku yahay inuu yahay hub qarsoon, taasoo sabab u ah ixtiraamka uu ka kasbaday hoggaanadii hore iyo kuwa hadda ee Mareykanka. warbaahinta The Jerusalem Post waxa ay fahamsan tahay bay yiraahdeen in agaasimaha Mossad David Barney uu dhowaan kulan guule la yeeshay agaasimaha CIA-da John Ratcliffe gudaha Israa'iil. si kastaba ahaatee, Israa'iiliyiintu ay ogaadeen inuu Steve Witkoff yahay ninka timeka ama waqtiga qofka muhiimka ah ee hadda isla markaana ay tahay in la sameeyo si loo bedelo jihada wadahadalada nuclearka Iran. Israa'iil waxaa ka jira walaac weyn oo ku saabsan in midna ama Witkoff iyo xitaa madaxweyne Donald Trump aysan si buuxda u fahmin muhiimadda faahfaahinta la xiriirta dib u eegidda horumarka Iran ee dhanka barnaamijka nuclearka. gaar ahaan waxa ay ka walaacsan yihiin uraniumka la kobcinayo iyo sidoo kale nidaamka gantaalada ridada dheer, kuwaas oo si sahlan loogu isticmaali karo gudbinta madaxyada nuclearka. dareenka rajagelinta ah ee Tehran ka muujisay wareegga labaad ee wadahadalada, isla markaana Mareykanku uu qariyay faahfaahin muhiim ah jadwalka wareegga saddexaad ee la qorsheeyay toddobaadka soo socda iyo arrimo kale, waxay muujinayaan in Barney iyo Damer aysan ku guuleysan dadaalkoodii ay doonayeen inay fashiliyaan wadahadaladaasi. taariikh ahaan, agaasimaha Mossad ee hadda David Barney ayaa la adeegsaday inay saameyn ku yeeshaan mas-uuliyiinta sare ee Mareykanka, iyadoo loo marayo soo bandhigidda sirdoon gaara oo cusub oo ku saabsan khatarta barnaamijka nuclearka Iran xilliyo istiraatiiji oo muhiim ah. tani waxay ahayd xeelad ay Israa'iil si joogto ah u isticmaasho si ay u bedesho mowqifka Mareykanka ee Washington, gaar ahaan marka wadahadalada ama cadaadiska caalamiga uu isu bedelo jihada aysan dooneyn. inkasta oo la isku dayay isla xeeladaasi mar kale, haddana waxay u muuqataa inaysan si buuxda ugu shaqayn Israa'iiliyiinta
kulankoodii ugu dambeeyey Paris. David Barney waxa uu xiriir dhow la leeyahay agaasimihii ka horreeyey John Clef ee CIA-da ee la oran jiray Bill Barnes, waxaana la aaminsan yahay inuu door weyn ka qaatay inuu ku qanciyo Barnes inuu qaato mowqif adag oo ku aadan qodobada muhiimka ah ee wadahadallada nuclearka Iran, taasoo dhowr jeer sababtay in wadahadalladaasi ay burburaan. Inkasta oo guulo hore laga gaaray saamaynta Israa'iil, haddana Steve Witkoff iyo Donald Trump waxay u muuqdaan kuwa go'aansaday inay Iran la galaan heshiis cusub. Haddii ay u soo bandhigi karaan heshiiska fiican kii Barack Obama 2015, inkasta oo si weyn uga hooseeyo waxa Israa'iil ay u aragto inuu yahay xalka dhabta ah. Haddii heshiis dhab ah oo gebi ahaanba xira barnaamijka nuclearka Iran la waayo, saraakiisha badankooda ee Israa'iil waxay door bidayaan inay ka faa'iidaystaan fursadda gaarka ee hadda furan. Diyaaradaha cirka ee Israa'iil ayaa bishii Oktoobar 2024 waxa ay sheegeen in ay hawada Iran ay ka gooyeen nidaamyadii difaaca cirka ee ugu awoodda badnaa Iran, iyadoo sidoo kale burburiyey awoodda Xisbullah iyo Xamaas oo ay ugu argudi lahaayeen weerar Israa'iil ku qaado xarumaha nuclearka Iran, oo hadda Israa'iil inaysan cabsi ka qabin weeraro uga yimaada kooxahaasi haddiiba ay Iran weeraraan. inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeeni maanta oo Salaaso ah bisha Abriil ay tahay 22 sanadkuna uu yahay 2025 oo inoo ka imanayay si toos ah magaalada Qardho ee gobolka Karkaar ee Puntland. inta aynu dib u kulmi doono waa Cabdirashiid Geelle iyo Bahda Sooyaal TV oo idin leh isma dhaafno.